الله وبركاته دمان أصحابتا قيمة له وأن السلام يا ساعة channel كحوكة توسكا أو حرنتين وما سنتين دمان بقول كيو بقول يا ساعة أضاونا سان إن شاء الله وحرجين channel كان سبسكرايب صارنا لايك نصارتان أرين حقير وحير ومتقنا مهمة عدسين ووتا إن شاء الله دبك شيء دونا maxaa maanta cusub maanta waxaa cusub arrin aad u xasaasiya ugu dambeynba waxaa maalinba qof baa lasoo qorxiyo hebel baa lasoo qorxiyo Flash Eviston maanta ayay ugu darneed xaaska Trump ayaa lasoo qorxiyay marwadii koowaad ee Mareykanka ee Donald Trump haddaba xaaska Trump ha lasoo qorxiyo xaaska Trump ayaa dhabar ka toogatay Trump sababtoo asagoo iyadoo aan wax warbixin aan la socodsiin Trump ayaa ay wax isugu yeertay dhammaan warbaahintii oo ay shir jiraa'id u qabatay waxaana ay shirka jaraa'id marka ay u qabatay dhammaan warbaahintii ay meel isugu keentay wali aqalka cad gudihiisa iyadoo aan cidna ka warqabin waxaana ayna sheegtay in aysan wax filnibiyeed wax gacan aysan ku lahayn waxaan la sheegay iyo waxaan la soo bandhigayba dhammaantoodba wax dambeyn isku lahayn iyadoo ay Trump isku bartay si caadi ay kalaamna isku barteen aysan isku barin madaxdii Flash Eviston ku soo qorxi ku madaxdii ugu sareysay bal aan daawano fiidiyogan ay isugu yeertay dhammaan warbaahinta I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from sheekada ugu xiisaha badan ee baraha bulshada haysata waxaa laga yaabaa sheekada ugu xiisaha badan ee baraha bulshada haysata dhammaan dadka caalamka ay la yaaban yihiin ay la fajacsan yihiin maxaa Flash Eviston iyo family-ga Trump ay soo dhexgashay waana sababta la yaabaya maxaa family-ga Trump dhammaan waxay ku jiraan Flash Eviston sababtoo ah waxaa la yaabaa family-ga Trump in ay gacan ku leeyihiin Flash Eviston waxaa la sheegayaa in ay wali ay dhiman yihiin 6,000 oo fayl iyadoo 3 milyan oo fayl hadda la soo qarxiyay 6,000 ah fayl aan wali la soo bandhigin caalamka aan wali la soo shaacin in ay jiraan xaaska Trump marka ay soo yeertay dhammaan warbaahintii hal su'aal oo la weydiiyay si khaldan uga jawaabto ama warkeeda oo hadalkeeda oo afkeeda wax khaldan ka soo baxa ayaa ay Trump noloshiisa dhan burburin lahayd waa sababta Trump u carooday sheekada kale oo Trump la xanaaqay waxa weeye ama koow aan lama dhihi karnaa waxay ka codsatay dhammaan dadweynihii ama dadkii la geystay filmdimiyeedka ama afduubida loo geystay jasiiradda waa in ay tagaan maxkamadaha aqalka cad iyo Kongareeska Mareykanka waa in ay habeen iyo maalin ay u taagnaadaan sida ay xuquuqdooda u heli lahaayeen waa arrin kale oo la yaab leh meeshan marka dadka ay ku yaacaan oo ay meel walba ay yimaadaan oo cid walba ay faraha ay ku taagaan odayga Trump ah oo laga arkay muuqaalo aad u naxdin badan oo haleelaya waxyaabo badan oo naxdin leh banaanka la soo dhigay markaas oo odayga si toos ayaa wajiga uga toogatay sababtoo ah hadii Trump oo laga hayay muuqaalo hore oo Flash Eviston dadkii dhibaatooyinka loo geystana ay tagaan Flashii dhammaan dadkii laga hayay dad baa carruur ka maqan yihiin dad baa waalidkood laga dilay ciyaal la kufsaday dadka dhammaan hadii maxkamadaha ay tagaan Trumpna Flash laga soo qorxiyo markaa arrintu waxay tagaysaa meel aad u adag waxaa kaloo arrinta la yaab kale waxa ay codsatay dhammaan Kongareeska iyo xisbiyada Mareykanka in sida ugu dhaqsaha badan loo hirgeliyo ama loo suurtageliyo in baaritaano la sameeyo lana helo xuquuqda dadka ka maqan tahay dhammaan waana arrinta Trump hadii ay arrinta ku cadaato marar badan ayuu Trump isku dayay inuu iska sii jeeyo dadkaas mar Iran ugu qaado marba meel waxaa intaasna wuxuu ka cararaya in lagu soo jeesto insha Allah dhammaan waxa rajeenaya wixii warbixin kooban inaad kala socon doontaan caalamka update-ka asxaabta waxa inaga codsanayaa channel-kan waa cusub yahay insha Allah wixii dhiirigelin ay horumar idinka inagu xiran tahay in fiidiyoga marka daawataan inaad like saartaan share-ta iyo comment soo bixisaan inta waxaynu noqonaysaa dhiirigelin anagana waxaan isku daynaa inaan soo gudbino fiidiyowaal update sidana hadda qaabkan wax u soo gudbin qaab ka wanaagsan wax walba idinka ay nagu xiran tahay insha Allah taageero wacan fiidiyoga xaqiiqadiisa insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh